qofka bani aadamiga ahi waxa uu isticmaalaa xubnihiisa taranka kolka uu u galmoonayo la qaybsadaha noloshiisa ee uu ka dhex xushay kumanaanka qof ee uu la nool yahay. Haddaba sida maacuunta nadiifka ah iyo miiska sida wacan loo gogolay ay u furan abataydka qofka ayaa loo baahan yahay in mid kasta oo ka mid ah labada isdoortay uu u daryeelo xubnihiisa taranka si uu u soo jiito rabitaanka gacalkiisa. Caafimaadka xubinta taranka ee ninku waa inuu xubnihiisa taranka geedkiisa biyo iyo saabuun ku mayro ugu yaraan hal jeer maalintii. Waa inuu galmo kasta dabadeed xubnihiisa si feejigan u mayraa, gaar ahaan kolka uu ka baqayo inuu jabto qaada, isaga oo ku dadaalaya inuu xubnahaasi ka ilaaliyo wax dhaawac ah. Ragga qolfada laga gooyo sida muslimiinta iyo yuhuudda, iyaga waxaa ku filan in marka ay qubaysanayaan saabuunta ku mayraan xubnahooda taranka markasta oo ay kaadiyaan ama dumarkooda u galmoodaan, iyana si wanaagsan u mayraan. Waxaa haddaba lagugula dardaarmayaa in galmo kasta dabadeed aad geedkaaga biyo kulul ku mayrtid, kulayle iyo qabowbe xilligii la joogaba, maxaa yeelay waxaa la cadeeyay in biyaha qaboobi ay geedka ragga jilciyaan oo dilaan. Caafimaadka xubinta taranka ee gabadha. Xubnaha taranka dumarku waxay u baahan yihiin in loo daryeelo si ka daran kana feejigan kuwa ragga, sababta oo ah xubnahooda taranka waxaa ku hoos jira qanjiro soo daaya dhidid iyo dheecaano keena ur laga dido. Qolfada xubinta sida tan geedka ninka aan loo gudin oo kale ayay u soo da'aysaa dareere si dhaqso ah isu bedela si aad ahna u soo ura, kaasi oo loo yaqaano baaradooro. Cambarku waxa uu soo daayaa dareere acid ah oo hadduu xadkiisa dhaafo jirka iyo dharkaba haleeya afka. Daloolka kaadidu waxa uu ku yaal meel dadan, taasi oo keenta in dhibco kaadi ahi ay ku haraan cambarka, keenana inuu uro. Cambarku waxa uu xiriir la leeyahay micnaha quruxda. Ninkuna kolka ay haweenaydiisa isu dhiibto oo ay hor dhigto, waxa uu cambarka u eegaa sidii isaga oo hor fadhiya shay xurmo mudan. Lama xisaabi karo inta dumar daqiiqadaasi ku waayay jacaylkii gacalkoodu u qabay. Asxaabta, erayadan aan idiin soo gudbinayno ma ahan wax aan ugu leenahay ujeedo kale. Waxa aan mar walba ugu talagalnay in aan ka waantowno ama aan idinka waanin caafimaadka nolosha qofka. Ma ahan eri laga xishoodo ama laga boqo mar haddii la raadinayo wax walba oo wanaaga. Mahadsanidin, qalad ha u fahmina.